بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan ka soo qayb galayaasha shirka madaxda sharafta leh magac kasto oo ay ku fadhiyaan iyo magac kasto ay leeyihiin iyo maqaam kasto ay ku fadhiyaan dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam waxaan jecel lahay inaanu waqti yar presentation yar oo kooban idin soo jeedino anigoo ku hadlahaya magacaygu yahay Warsame Axmed Shiddo oo ku hadlahaya shirkadda dhismaha dekadda ganacsiga iyo kalluumaysiga Garaac magaceeda la yiraahdo wadaagsan waa shirkad Soomaaliyeed oo ay ku arureen oo ku midoobeen ganacsato Soomaaliyeed hayri fariista ay ku midoobeen ku midoobeen ganacsato Soomaaliyeed oo maalkooda isku darsaday ayna ku talagaleen inay dalkooda horumariyaan markay arkeen baahida ka jidha iyo boosishinada ay ku taal Garaac markaan brief yar ka bixiyo location-ka ay ku taal waa magaalo dhacda badweynta Hindiya oo qadiim ah waxay masaafo isla eg u jidhaa dekadda Boosaaso iyo dekadda Muqdisho waxayna ku taallaa badweynta Hindiya waa meel leh Ilaahay siiyay xoolaha nool iyo hantida kale ee dhulka korkiisa saaran iyo inta hoostiisa ku jidhaba markii la arkay baahida loo qabo in la helo dekad international ah oo konteenarada laga soo dejin karo maraakiibta waaweyn ku soo xirmi karaan oo dhacda badweynta Hindiya una dhaxaysa labada dekadood ayay noqotay in ganacsatadaasi dhaqaalahooda isku daraan meeshaasna ay ku talagalaan inay ka dhisanto dekadaas biidnillaahi kariim markii la diyaariyay dhaqaalihii shaqada lagu bilaabi lahaa ayaa kambaniyashaasi waxay shirkadaasi waxay heshiis la gashay kambaniyaash caalami ah oo dhinaca dhismaha dhinaca consultantiga ama tala bixinta dhinaca sharciga baylowga iyo dhinaca maamulka iyo maareyntaba inay maadaama shaqadaasi tahay shaqo weyn inay heshiis la galaan shaqada la fuliyaan waxaa la dhammaystiray dhammaan qalabkii shaqada lagu qaban lahaa ayaa lagu soo dhammaystiray ku diyaar ah xeebta Garaac waxaa la dhammaystiray dhammaan shaqadii biriga laga qaban lahaa hadday store tahay hadday wadooyin tahay wadooyinkii badda gali lahaa tahay iyo hadday degaamadii tahay idamka haddii Ilaahay ka dhigo muddo ay naga xigto 2 bari oo aan u astaynay 20 Sebtembar 2019 waxaa si toos ah u bilaabanaya haddii idamka Ilaahay ka dhigo shaqadii dhismaha dekadda Garaac ee badda waxaan martida meesha fadhida iyo inta ay maqlaysa iyo inta muuqaalkayga arki doontaba aan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan dekadaas sida sahlan oo qiimaha ugu jaban oo dekada ku dhismanto oo dekad caalami ku dhisanto oo injineeradu ay faahfaahin doonaan ku dhismaysa waqtiga dhowna waxna lagala soo degi doono waxna lagala dhoofsan doono inay ku soo dhawaadaan waxaan kaloo ku soo dhaweynaynaa Garaac waxa laga diyaariyay free zone 80 ama ganacsiga xorta ah 84 kilomitir oo ganacsiga xorta waxna la dhigan karo waxna laga dhoofsan karo waxna laga dhisan karo oo loogu talagalay ganacsatada caalamiga ahi inay waxna dhigtaan waxna ka dhoofsadaan waxna ka dhistaan waxay ku taallaa positionka caalamka habka waxa loogu talagalay inay noqosho meesha habka badweynta Hindiya maraakiibta maraysa meeshay waxna dhigtaan waxna ka qaataan oo habka ah ayaa loogu talagalay waxaan tilmaamahayay anigu oo aan ku soo dhaweynayaa barnaamijkan muqaddamadaasi waxa weeye kooban baan tilmaamayay
madaxda halkaan fadhida oo injineerada ah oo waxa weeye kambaniga wadaagsan waxa weeye kambaniyaasha la shaqeeya kambaniga la BIA oo director generalkeedii fadhiyo Roy iyo Maxamed Fasaluddin oo ah project manager-ka ay shirkadda wadaagsan u qaadatay inuu inta mashruucan socdo kala shaqeeyo iyo injineerka Sayidka Ismaaciil ayaa presentation-kii loogu talagalay xafladan soo jeedin doona muqaddamada yar oo odaynimo ku darahayay soo dhawaada magac Soomaali iyo غير Soomaali waa furantii waa mahadsantiin welcome